magaalada Johannesburg South Africa ayaa waxaa lagu qabtay tabad lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha dhawaan la magacaabay Xasan Cali Khayre. Aydru Abdi Xasan ayaa ka qayb galay warbixintan inoo soo diray. xalfadani oo lagu taageerayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay xubno ka socda dawladda Koonfur Afrika xisbiga talada haya ANC gudoomiyaha xaafadda Soomaalida ee ka digantay magaalada Johannesburg ee Mayfair aqoon-yahano waxgarad culimo u diin iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida munaasabadan oo ahayd mid duca ayaa la bari ah oo loogu duceynayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa inta badan dadkii ka hadlay waxay ahaayeen kuwa ku dhiirinayay kuna boorinayay inay noqdaan kuwa Soomaaliya u horseeda horumar iyo barwaaqo. ugu horreyn waxaa munaasabada daahfuray qonsulka safaaradda Soomaalida Maxamed Cali Mire Nabadoon oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay midnimada iyo iskaashiga. waa u hambalyeynta iyo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xasan Cali Khayre oo dhawaan loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada. waa u hambalyeynaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu xilkaas culus ee qaanuuniga uu u fududeeyo. waxaan Ilaahay ka baryaynaa mas'uuliyiintaas cusub inay noqdaan kuwii noo horseeda isbeddelka aan rajaynayno. waxaan anaguna codsanaynaa inaan la wada shaqayno mid u duceeya mid difaaca iyo mid wixii uu qaban karo kala qabta. inaan maalin madaxweynaynta la magacaabo aan soo dhaweyno xaflad isugu nimaado maalin kaleetana ra'iisul wasaare la soo magacaabay aan asagana xaflad ku soo dhaweyno kaliya uma baahna dawladnimadu. jaaliyadaha Soomaaliyeed ee adduunka meel walba ka jooga inay taageeraan dawladooda qof walbana uu isku dayo waxa uu ku taageeri karo oo Ilaahay uu siiyay inuu bixiyo. waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo kii ummadda Soomaaliyeed ay ku degtay. ma jiro xasan bile bini'aadan ah oo bini'aadanka oo dhan qanciya. waxaan isku daydaa in cadaalad iyo sinaan aad ummadda Soomaaliyeed ku wadid. qof kasta oo bini'aadan ah wuxuu isku dayaa in uu wax qanciyo laakiin ma qancayo qofka bini'aadanka ilaa isagu dantiisa gaarka ah. mudane Xasan Cali Khayre soo dhawow ilaahay xilka aad muxuu ahay lagu magacaabay ha kula garab galo. ilaahay midkii Soomaali ku dagtaa ka dhigo. ilaahay midkii jagadiisa iyo mas'uuliyadiisa ka soo baxo oo midnimo Soomaali keen ha ka dhigo. To congratulate the people of Somalia, to congratulate the state of Somalia, the newly elected president and premier, and we make dua that Allah. xalfadda intii socotay ayaa lagu soo bandhigay riwaayad ka tarjumaysay iscafiska iyo saamaxaadda. ugu dambeynna waxay la hadleen TV-ga caalamiga Universal hadaladoodina waxaa ka mid ah sida tan. ognay oo aan caawa ku qabanay xaflad taageeradan loogu muujinayay ra'iisul wasaaraha dhawaan codka aqlabiyadda leh ay ku ansixiyeen baarlamaanka federaalka mahadiha ka gaartay una soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka sida aqlabiyadda lehba ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo aan run ahaantii ka rajaynayno in uu wanaag iyo khayrka magaciisa wata u horseedo ummadda. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena cusub Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre. waxaan aad uga rajaynaynaa inay noqdaan dadkii aan filanayno wanaag inaan ka helno insha Allah haddii reer South Africa nahay. baarlamaanka Soomaaliya waxaan asagana u diraynaa hambalyo. waxaan leenahay Ilaahay kula garab galo xilkan aad qaaday. xalfadda ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan waxaana la filayaa 4 sano ee soo socota dawladani inay wax badan ka qabato xaaladda Soomaaliya. Aydru Abdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika.